toddobaadkan si weyn waxaa loo hadalayaa oo cirka isku shareertay khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya dawladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa la sheegay inay ka cadhootay shirka sahaminta shidaalka oo lagu soo bandhigay magaalada London oo la sheegay inay Soomaaliya halkaasi ku soo bandhigtay dhulbadeedka lagu murasan yahay ee u dhexeeya dawladaha Kenya iyo Soomaaliya. haddaba arrintan ayay si weyn u hadalhayaan dhammaan dadka Soomaalidu meel kasta oo ay joogaan, waxayna si weyn ugu lafagurayaan baraha bulshada iyo waliba warbaahinta. haddaba halkani waa Hargeysa, maxay la tahay iyagana? anagu runtii waan ka soo horjeednaa dalka jaarkana Soomaaliya ee walaalahaya in dadkooda iyo xuduudkooda iyo badooda la goosto. sidaa darteed waxaan u aragnaa duulimaad ku salaysan Soomaali sidii loogu soo duuli lahaa. marka aad iyo aad baan wayaan anagu uga xunaadaan bulshada reer Soomaaliland nahay. maanta haddaan tago shidaalka la sheegayo inuu shaqo tago daanu siyaasi meeyo hore laga siinaya shaqada meeshii wala khayraad ka soo baxana weyn wada leen dadkana waa dad Soomaaliyeed iyaga qaldan oo inoo qoysa waay haddayna aqoonsanaana hiilka weyn u kordhinle. runtii imika Kenya halka sheeganaysa dee Muqdisho meesha waxa waa 50 kilomitir bay Muqdisho jirtaa dhinaca badda. marka runtii wax imika soo cusbaana maaha. Soomaaliyana imika ayagu is ogaadeen mar hore la qabsaday. marka kaliya quraatay dadka quraatay ku kalsoonaa ee maanta difaaci lahaa waxa weeye Soomaaliland waad ogtahay maanta farmaajo dee wax walba uu sameeyay go'doomin nolol ahaan. marka maanta inaka wax teelo inoo dhigteen ma jirto. Soomaali waxa dad magac loo Afrika dad ka wada dhigtay badankeeda iyadoo liidato Afrika wada gumaysiga silcayso ayaanu Soomaali haddaan noo dagaalami jiray. maanta nasiibka darrada nagu dhacday hadday nala eeganayso Kenya waxa weeye raggii uu joogay carruurtoodii halkan baanu ka bilaabay midnimana waanu sameeynaa markay gaadho sida leenka yagana goonu noo ahaanaya taana waanu ka dagaalmaynaa. marka wax weeyaan Kenya waxba niyadayay galin Soomaali maanta way jilcsantahay. haddii qolo la weeraro shanta Soomaalidu qoladii la weeraro qolada kale waa u hiilinaysaa si kastoo ay kala go'an yihiin. jirka madow bay ku dagaalamayaan, jirka madow iyo ciida ayay ku dagaalamayaan. markaan ka hadlo Kenya 24 saacadood dagaal wax igama haysan karto runta markaa doonaysid wallahi igama haysan karto walaana beel sheegin. adoon ka naaxday baa joogta meesha konton ciyaar haddaan duro kontonka ciyaar ka saaraya magaalada. dad Soomaaliland ka soo jeedaan nahay dal baan nahay madax banaana ku dhawaaqaan nahay marka waxa weeyaan dal isku filan baan nahay xuduule hase ahaatee waxa labo la kala saaraa waxa weeyaan dad Soomaaliya baan jinsiga diin iyo waxaan wadaagnaa dhaqan iyo waxaan wadaagnaa waxa weeyaan islaamnimo waxaan wadaagnaa diin baan wadaagnaa qofka Soomaaliga runtii dhibaatada la soo gaarsiiyo ma dul qaadan karno. maantana cadow kasta oo qof Soomaaliya dawladdu doona Djibouti ha joogo waxa weeyaan Soomaaliya ha joogo Somaliland ha joogo qofka Soomaaliya kilka shanaga joogo qofka Soomaaliya waxa yar la soo gaarsiiya ma dul qaadan karno. Muqdisho diimka ama xamar ay Kenya damacdanay soo farageliso ama soo wararto dee barta sano ka baxana waan la dagaalamana. khilaafka Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya waxaan u arkaa mid ay Kenya ay ku boobeyso oo damac ka hayo dhul ay digto Soomaaliya. marka waa mid qalad ah maxaan ku raday dee halkaan waxa ka muuqda burburka Soomaaliya laga faa'iideysanayo oo dhulkeedii la qaadanayo. taasna mid aan ugu taageersanay maaha haddaanu Soomaaliland nahay dee dalhaan waanu kala madax bannaanahay laakiin se diirahaan dhul Soomaaliyeed weeye. waxda Soomaaliya la yeelana guud ahaan dee wax qof Soomaaliya la yeelay. Cabdi Shakuur Saleebaan, Telefishinka Horyaal, Hargeysa.